بسم الله الرحمن الرحيم مدن وزير دولها قدوميها gobolka bahda waxbarashada heer federaal iyo heer gobol waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu runtii maanta waxay noo tahay farxad iyo sharaf weyn in mar kale iskuulka hoose dhexe sare ee Maxamuud Mire mar kale aan ku daahfurno barnaamijka sidaa u sheegtay dugsiga sare sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan daahfurnay barnaamijkii dugsiga dhexe haddana in aan runtii fursaddan qaaliga ah aan u yeelannay kulligeen nasiib inaan daahfurno barnaamijka dugsiga sare runtii waa ilaahay mahadiis waana runtii waa hawl wasaaradda aad adigu hoggaanka u hayso ay juhdi iyo waqti badan gelisay iyo hay'adaha kale oo idinka caawinayay in aan yeelanno barnaamij midaysan waxbarasho laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa dugsi sare runtii waa waxqabadka dowladdan dhanka waxbarashada oo aan ugu talagalnay carruurteenna inay helaan quality waxbarasho tayeysan si ay ula tartamaan hadda ka hor saan u sheegnay waddamada kale ee dhigooda ardada kale ee caalamka ay ula tartamaan waxaana lagu kala horumaraa waxbarashada iyo quality-ga waxbarashada ee dowladdu ku guulaysatay inay runtii ka shaqayso ardadeenna inaan siino waxbarasho tayeysan hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinnay 3 milyan oo buug macallimiintan aan ugu talagalnay training curriculum books inaan ugu talagalnay 200,000 haddana aan diyaar u nahay inaan bixinno 1 milyan buugaag gaaraysa guud ahaan dalkoo dhan taasi waxay runtii ka turjumaysaa muhiimadda aan saarnay waxbarashada guud ahaan dalkoo dhan inaan gaarsiinno oo weliba aan ku mideenno quality-geeda marka runtii mudane wasiir shaqada wanaagsan adiga iyo howlwadeennadaada iyo wasaaraddaada qabateen aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahad celinayaa iyo weliba sida aan u daadejinayno waxbarashada heer gobol oo aan 24 iskuul aan la wareegnay iyo 65,000 arday ay hadda maamulkoodii la wareegeen gobolka banaadir ay la wareegeen weliba annagoo kor joogtaynayna oo ilaalinayna tayadooda waxbarasho heerkii aan ugu talagalnay inay taagan yihiin kobcinayna runtii aqoontooda oo aan insha Allah hadduu ilaah yidhaahdo aan badinayno waxbarashada iskuullada ku soo wareegi doona gobolka banaadir guddoomiye haddee waxaan kugu soo wareejinnay intaasoo arday oo mas-uuliyaddeeda ku saaran tahay ilaahay kuu fududeeyo annagu waxaan rabnaa in ardadaasi ay tayadooda kor u sii kacdo oo kor loo sii qaado wax alla wixii taakuleena aad wasaaradda ka rabtan kolleyba dee diyaar ayaa lagula yahay dee ilaaha kuu fududeeyo hawsha الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية صوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو وزيرك وحبرشة دولة فدرالك مدن عبد الله قاضي بره وزير الدولة وحبرشة يتعلن تسري جابري مسؤولين تكلا أنا جلس وقايب قال مناسبة دماتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتي وحاشرف وينوعه inuu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka waxbarashada iyo madaxdii waxbarashada bahda waxbarashada dhammaantood ay halkan u joogaan daahfurka manhajka Soomaaliga ah ee runtii markii koobaad ee dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay manhaj u diyaariso ubadka Soomaaliyeed arrintaas waa arrin farxad leh dhiirigelinaysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada wax badan dhihi maayo insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka waxbarashada oo si faahfaahsan uga hadli doona arrintaas wabillahi tawfiiq mudane madaxweyne gudoomiyaha gobolka مسؤولين تكله
mudane madaxweyne guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada mas-uuliyiinta waxbarashada heer gobol iyo heer federaal ee maanta meeshaan joogo mas-uuliyiintii mas-uulka ka ahaa soo saaridda manhajkan maanta na hor yaallo dhammaantiin assalaamu calaykum mudane madaxweyne waxaan marka hore kaaga mahad celinaynaa anoo ku hadlaya magaca waxbarashada dalka bahda waxbarashada dalka taageerada iyo tusaaleynta aan mar walba nala garab istaagan tahay oo ay igu horreysay manhajka inuu mid noqdo manhajku inuu taabo qaado manhajka in lagu dhaqmo manhajka in la ballaariyo manhajka in arday walba oo soomaaliyeed meel kastoo joogo xataa kuwa qurbaha joogo in la gaarsiiyo aad iyo aad aan kaaga mahad celinaynaa annagoo ku hadlaya magaca bahda waxbarashada annagana tilmaantaadii iyo tusaalayntaadii ee meel dhow ugama aanan soo harin kal hore waxaad noo daahfurtay dhaqangelinta manhajka fasalka koowaad ilaa fasalka afaraad sanadka ku xigay waxaad noo daahfurtay dhaqangelinta manhajka fasalkii shanaad ilaa fasalkii siddeedaad dhaqankaas soo jiraynkaa maantay waxaad goobjoog aad ka tahay kaagana mahad celinaynaa jecelnahayna inaad noo daahfurtid ku dhaqanka manhajka dalka ee dugsiyada sare fasalka sagaalaad ilaa fasalka labaiyo tobanaad mudane madaxweyne haddaan sidaad la socotid oo aan in badan kaaga warbixinnay juhdi aad iyo aad aan sahlanayn ayaa hawshan gashay dad badan ayaa ku howlanaay oo kulligood soomaali ah manhajka ku hor yaallo gacan shisheeye kuma jirto marka adna nasiibay noo noqotay annagana faan ayay noo tahay inaan maantay aad noo daafurtid ku dhaqanka manhajka dugsiga sare aadaan kaaga mahad celinaynaa waa 13 buug waxaa ku soo kordhay maadooyin cusub waxaa kale oo kuwii hore uga duwan yahay in 3 luqadood manhajka ku qoran yahay iskoolkii raba inuu ingiriis ku dhigo ingiriisi buwaagti ayagoo ku qoranay helaan hadday rabaan inay af carabi ku dhigaan iyadoo af carabi ku qoranay helaan annaga wasaarad ahaan waxaan dhiiri gelinaynaa in af soomaali lagu dhigo laakiin fursaduhu inay ballaaran yihiin waa taladaadii iyo tusaalayntaadii mudane madaxweyne anoo aan war ka badinin waxaan jecelahay inaan warkayga ku soo koobo mahad celin iyo inaad tii habbooneed aad ka tiraadid maantii munaasabaddan iyada aad iyo aadaa u mahadsan tahay Okay.